بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قوس قرحون ميل والبادون كجوكتين هذا يعني دين سلام يا أصحابتنا نقص بيرو دونتنا سود وهذا جنال كينا واي بانتو وحان سميسانينا صبايد waxay ka kooban tahay kiilo bur ah 3 xabo ukun iyo cusbo yar 2 qaado sonkora iyo 3 qaado oo subaga intaas ayaan hadii ilaahay raada ka sameeynaa sideen u xashanaynaa marka waxaan soo qaadanay baaquli waxaan ku shubaynaa burka sawaayad aad cajiib oo jilicsan oo macaan oo aad uga heli doontid waaye baaquligan wuu nagu yaraaday marka baaquli kale aan ku bedelaneynaa baaquligan ayaan ku gedisaneynaa burki waxaan sabaayadan ku qaseynaa 2 koob oo biyo karkaraya biyaha wax yar yaalo dabka saar waa biyo karkarayo isla rogaya ayaa sabaayada lagu qasaya waxa kale laguma darayo wax qamiir ah bakin laguma darayo yeastina laguma darayo intaan bas ayaan ku isticmaaleynaa hadii qamiir lagu daro dhadhankiisa isbedelay sabaayada waxa loogu talagalay intaan hadda meesha taalo ayaa lagu sameeyaa marka qaada ayaan isku la walaaqeynaa sonkortii cusbadii ukuntii iyo burkii subaga hadda ma ku dareyno markaan isdhex galgelino si fiican ayaa waxaan ku darsanaynaa koob biyo karkar ayaan ku dareynaa insha Allah biyaha kulul wuxuu ka saacideynaa sabaayada inay jileec ku noqoto qaadadan waxaan isticmaaleynaa biyaha aad u kulul sooma marka qaadadan ku isticmaaleynaa alkooba biyaan ku shubay hadana biyihii kale soo shubaneynaa koobkii kale meeshii uu biyaha gaarin koobkii hore ayaan gaarsiineynaa biyaha isticmaaleynaa waa biyo dabka saaran aad u karkaraya qaadadan saa isku gelineynaa hadda gacanta ayaan la galaynaa waa xashanaynaa burkeeni sawaayadan lagama sheekeyn karo macaanka maasha Allah sawaayadan asxaabtaada la wadaa waa ka heli doontaa wax walbana ku cuni kartaa oodka maraq wax walba ku cuni kartaa sawaayad waxay ka mid tahay waxyaabaha aan dhaqanka u leenahay Soomaalida marka qofka safar galaa loo sameyn jiray marka sawaayad waxa waaye maasha Allah hadda bartid waxa waaye maasha Allah gabdhaha waxa waaye qayb ka mid ah cunada barata oo muhiim ah oo dadka inta badan way dhibtaa sawaayada oo ay ka adkaataa koobkii labaadan biyo ku dhameystirnay waan soo xashanaynaa marka burka saas inuu gogaa la rabaa uusan isjiijiidan hadda waxaan ku darsanay subagii hadda ku xashanaynaa weli xashitaana u dhiman sawaayada xooga u baahan tahay shaqo waxaan soo qaadanaynaa alwaax aan kor saaranaynaa si aan si fiican ugu xashano waa kan alwaaxan aan kor saaranay Soomaali si dharka u dhaqays camal ayaa u xashanaynaa maasha Allah alwaaxa yar baxsana marka maradan yar aan soo qaato kor saar alwaaxi si fiican ayaan u xashayaa marka ilaa 5 daqiiqo aasaan u xashayaa insha Allah haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar share asxaabtaada la wadaag wixii dhiirigelin iyo commentina hoos noogu qor markaan soo xashanay waxaa sameynaynaa burkii aan kuskuusanaynaa
intaas cabirka intaasaan jaraynaa si uu qiyaas oo meel dhexaad kuu noqdo. intaasaa qiyaasanaysaa. halkan aan soo diyaarsanay waa soo kukuusanay. hadda maxaan sameynaynaa saliidaan dhexda ka marmarinaynaa waa dhiganaynaa. marka bur ma ku fidinayno, saliid ayaan ku fidinaynaa maadaama ay sawaayad tahay. hadda isagoo waxba noo oolina hadda hore ka qasanaaba maasha Allah. daarabta hadaad degdegsan tahay hore ka duban kartaa, laakiin anigu waan dhigaa. saasaan u fidiyey. markaan saa u fidiyo saliidaan dhexda ka marinaya isaga dhan wada gaarsiinaya. kana dhinacana saan uga laabaya, haddana dhinaca kale, haddana labada geesood ayaan ka laabayaa. saas ayaan sameynaynaa. kuuskuusida dhan saana u sameynaynaa. maasha Allah sawaayadan inaba caadi maaha ku dheh. macaanka jilaaca caruurtaa siisane, xaajiga hadduu ku joogaa siisane, hadday hooyada waalidka ku joogaan, martida dhinacay diideysa maba lahanba yaa. sawaayadana sharafteeda waa biyo kulul inaad ku qastid si fiicanna u xashid. in badan ani gabdhaha walaalay waa u sheegaa, qofkii weydiiyo waa uga faa'iideeya. halkana xabadii ugu dambeeyay hadda aan dana laalaabeynaa. xabadana ugu dambeyso. sidii kii kale aan u sameynaynaa. kuwii hore sidii hore taan u laalaabeynaa. waan dhiganaynaa muddo 3 saacadood ah ayaan dhiganaynaa. haddaad degdegsan tahayna hore waa ka duban kartaa oo maraqaaga diyaar ku yahay hore ka dubanaysaa. haddii oo waqti haysatidna waa iska dhiganaysaa intaa hawsha kala qabsanaysid. jilaac leh kuu sii noqonaa. mar walba sii dhigtid jilaac leh kuu sii noqonayaa. waa kana maasha Allah saana u laalaabanay. waa dhiganaynaa marka isku soo noqonaynaa. waa kana burkeenin markuu cabaar noo yaalay. dana mar kale aan fitinaynaa. marna bur mu isticmaalayna. wax qamiirana ma ku darin. qamiirka haddaa ku darta badada bakin iyo qisti ku dara. haddaa yisti ku darta bakin dhadhan kaluu yeelanaa. sawaayadna wuu ka baxaya. marka uma baahna wax qamiira in lagu daro. sidaana waalidkeen u sameyn jireen. halkana birtaanaa soo qaadanay, birtii biisaha. haddaa wareega u sameysanaya, haddaa rabtidna caadigaana u sameynay. geesaha wax yar ka simeynaa. marka wixii dheeraadka ku ahayn ka jaraynaa. haddaa rabtidna wareeg waa u jaran kartaa, wareeg waa u waxaysan kartaa. waa kana birteeni, waa kana saliidaan marsanay, aan kor saaranay. badii aan soo diyaarsanay aan kor saaranay. waa kana hoos markuu nooga bislaaday dhinaca kale aan gedinaynaa. saliidaan ku wareejinaynaa. sawaayadina jilicsan tahay waxaa ku fahmaya aariyo hadday soo gasho sawaayadaas way jilicsan tahay. korna ka yara dildilaacdo meelahaas ma jeedido. sawaayadaas way jilicsan tahay ma loo noqonayo. kana sawaayada kana xabadii labaad saana ku wada ilaa aan ka dhameeyo sawaayada. maasha Allah quruxda lagama sheekeyn karo. waa kana sawaayadeena soo dhameysanay, soo diyaarsanay. maasha Allah ilaa inta haysan inta haysatana u siyaadi. haye martida kan loo dhigo ka warnay
lagama sheekeyn karo jileeceeda. qof arkay leh soo tijaabi. jilaac iyo macaan isku darsata yaa wadka caawa ku cun shaaxa ku cun. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.